waxaan dhammaan ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeeynaya 60 guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobolada waqooyi ay qaateen 26 Juun 1960 taasoo aasaas u noqotay midowgii Soomaaliya 1 July 1960 waa maalintii ugu horeysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyay ee ku magacaabay kaana siid kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyay beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorooween waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska iyo weynaynta taariikhdaas qiimaha weyn noo wada leh ee eebbe na halalsiiyey oona tusay inaan sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno 60 guurada sanadkii la soo dhaafay oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u far badan inaan qabanno oo 60 guuradan ay ka weynaato kuwii hore bacdama aan 60 jirsanay laakiin nasiib darro waxaa caqabad badan ugu noqday COVID-19 oo socodkii adduunka oo dhan yareeyay annaga dhexdeena xitaa socodkii yareeyay wax badan aan qaban lahayn runtii na hor istaagay laakiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa buloleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey waxaan dareensanahay qiimaha weyn ee madax bannaanida iyo yagleelidda qarnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhido waxaa la soo maray halgan dheer
oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo mahad iska leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegey oo aan haynaa hadda halgankii xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku midaysnaa ururadii gobonnimodoonka ahaa ee la odhan jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonnimodoonka iyo xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed labadaas urur waxay lahaayeen xiriir adag waxay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhallinyarada SNL iyo SYL ay guteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxaa ugu horeeya daacadnimo siday sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo intaas ayay ahayd wixii keenay midnimada maanta iyo gobonnimada aan ku naaloonayno kuwii naga horreeyey oo aan ku sheegnay SYL iyo SNL waxay nooga tageen dhaxal su-aashu waxay tahay maxaan annagu uga tegaynaa kuwa hadda jooga waa ognahay waxay nooga tageen inay ahayd inaan Soomaaliya ay xor noqotay inaan midownay inaan yeelanay dowlad midnimada macnaheedu waa xooggaasna aan ku istaagnay dadkeennii ay ku heleen maxaan ku idhaahdaa adeegii bulshada dhallinyaradeennii ay heleen iskuul lacag la-aan ah waxbarasho lacag la-aan ah caafimaad lacag la-aan ah in la dhiso amnigii iyo dowladnimadeennii iyo ciidankeenni la dhiso kadibna markii annaga hawsheennii dhexdeenna aan dhammaynay aan u tallaabnay inaan Afrika wax ka xoreyno oo cidda naga liidata aan kaalmeyno aan gargaarno maanta marka adduunka aad aado cid walba kula hadasha waxay soo xasuustaan Soomaalidii hore iyo siday ahaayeen iyo sidaan Afrika u caawinay iyo mar walba ku sheegaan iyo sidii aan garab u siinay qolooyinkii markaas dowladihii aan gobonnimada gaarin waxaasoo dhan waxaan ku gaarnay waxay ahayd midnimo waxay keentaa dowlad wanaag midnimo waxay keentaa bulshadaada inay ka haqabeelaan adeegooda iyo wixii dowlad laga rabay annaga hadda xagee yaan u soconnaa marka
sida la sheego 60 sano jirnaa 30 sano waa wada joognay meel fiican bay wax noo maraayeen inkastoo dhaliilo ay jireen laakiin dalku waa haystay dalku mid buu ahaa ummadeenu waxay la tartamaysaa caalamka intiisa kale ma jirin kala qoqob qabyaalad xoog leh ma jirin oo qofku uu ka hormariyo wadaniyada iyo qarannimada ma jirin taas weeye waxa aan rabno inaan wax ka cabirana marka soddonkii la soo dhaafay waxaan sameynaa wixii ka duwanaa wixii dhalinyaradaas ay sameeyeen Soomaaliyeed oo ahaa in ay iska fogeeyaan wax alla wixii kala qaybin kara oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo gobolaysiga ay ku xigto taasna runtii soddonkii sano ee la soo dhaafay aan ka galnay adduunka meel aad iyo aad u hooseysa oo aan la sheegi karin oo ceeb leh aan ka galnay wax kasta aad fiiriso haddii aad gasho Google-ka haddii aad gasho YouTube-ka meel walba aad gasho meesha ugu hooseysa aan ka joogno adduunka annagoo cabiranayna halbeegna ay noo tahay farqiga u dhaxeeya markay ummaddu mid yihiin oo ay walaalo yihiin oo nidaam fiican iyo dawlad fiican ay haystaan ay isku kalsoon yihiin iyo marka ummaddu ay kala irdhoobaan ummaddu ay kala fogaadaan ummaddu ay qabyaalad iyo qabiil ay noqoto hooygooda markii gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay waxa soo idil waxa aan ka dhaxalnay waa ognahay waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunka dhan noo taala maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata Ethiopia lama tartami kartid Kenya lama tartami kartid Uganda lama tartami kartid Suudaan lama tartami kartid Carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kuula tartamayaan waxay kuula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kuula tartamayaan marka adigu kii walaalka ahaa haddii uu ku weeyahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walba aad ka hooseyso oo mar walba hoos lagu fiiriyo oo mar walba aad taakuleen iyo caawimaad aad weydiisato adigoo ah hal dad oo walaalo ah adigoo ilaahay khayraad badan ku siiyey adigoo ilaahay ka dhigay dadka Soomaaliya lagu yaqaano oo shakhsi markay tahay aan nahay dadka ugu quality fiican dhinac walbaba laakiin markay noqoto maamul markay noqoto wada shaqayn markay noqoto dawladnimo aan ka galno meesha ugu hooseysa waxaan hadda u soconaa marka soddon cusub yaan u soconaa soddonka cusub ummadeenu maxay naga dhaxlayaan marka ilaa aabayaasheen waa sheegay waa soo halgameen waa loo xiray waa loo dilay waa u dhinteen xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii waa ku bixiyeen in Soomaaliya la sinaato ama ay ka sareyso wadamada la midka ah ay ka sareyso waana muujiyeen iyagoon ognahay wadciga aan ku jirno hadda iyo wadciga ay ku jireen aan ognahay wax kala fogna ay ahaayeen macnaheedu waxay tahay soddonka sano soo socda waxaan raadinaynaa midnimo soddonka sano soo socda waa 10 waa test annaga dadkeena madaxda ay ugu horeyso iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed laga rabo inaan u dhaqaaqno midnimo inaan raadino waa bilawnay inaan raadino midnimo oo aan ka raadino walaalahan Soomaaliland aan ka raadino muddaan ka shaqeynay ilaahay waa nagu guuleeyay waxaan rajeynayaa in wada hadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah maxaa yeelay kalama maarano waa isu baahannahay dhinac walba yaan ehel iyo walaalo u nahay haddii dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay waa aragnay khibradeeda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dawladaha geeska Afrika sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno
adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fakarkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan faan ma aha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horeysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weey waxay ogaadeen geeska Afrika dawladaha ku yaala in la isu baahan yahay in dawlad kaligeed istaagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin in maanta iyo wixii ka dambeeya loo baxo economic development inaan horumarino shacabkeena faqriga inaan kala dagaalno wax alla wixii conflict ahaa ama attention ahaa in la joojiyo oo aan ku bedelno isdilkii hub aruursigii inaan ku bedelno inaan beeraheena horumarsano badeena inaan horumarsano annaga ugu badeer Afrika iyaguna waxay u baahan yihiin wax badeena ka soo baxdo iyaguna waxbay hayaan aan uga baahannahay tartankaasi ma geli karno annagoo kala qaybsan ma geli karno mar walba waxaad ku jiraysaa meesha ugu hooseysa sidaas darteed anigoo ku kalsoon wada hadalkii aan soo galnay meel fiicanna aan ku soo ogaanay inaan xoojinno aan horey u qaadno aan horey u marino insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo walaalkay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi waa Soomaaliya waa nin vision leh waa nin aragti dheer leh waa nin waayo araga muddo dheer soo jiray wuu arkayaa in Somaliland aysan hore u socon karin annaguna aan hore u socon karin intaan kala maqannahay waa arkaa geesinimadeeda qabtay bilaabay waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan xoojino hadduu Eebbe yiraahdo waxaan ka shaqeynay dawlad wanaag oo ah marka la raadinayo midnimo inaad adiga aad ka shaqeyso dawlad wanaagna waxaad ku heli kartaa xasilooni siyaasadeed waana muujinay in aan helnay xasilooni siyaasadeed oo waa iska dhici kartaa siyaasaddu waxay leedahay muran iyo kala fakr duwanaansho leedahay waxyaabahan dhacaya dhib ma laha waxa weeye waa exercise oo dimuqraadiyad ah weeye ma aha kala tag iyo kala fogaansho ma aha waad aragtaan mar walba ay wax dhacaan waxay ku dambaysaa in la isu soo noqdo oo caqliga shaqeeyo oo laga shaqeeyo danta guud waxaan yararka ah waa laga gudbayaa waana ku soo jirnay laakiin marna annagu ma gaarin level ah inaan wax ku dumino in dawlad meesha laga saaro ma gaarin dawlad cusub maalin walba la dhiso ma gaarin waa taas weeyaan xasilooni darrada ah waana ku guulaysanay waxyaabaha aan noo qabsoomayna waxaa qayb ka ah arrintaas qayb ka ah